garabare jamjamo caruurey sheekadan waxaa la yidhaahdaa geed iyo guuleed waxa ay dhex maraysaa inan yar oo la yidhaahdo guuleed iyo geed gob ah guuleed wuxuu ahaa arday dhigtay iskuulka dugsiga hoose maalin maalmaha ka mid ah ayay markay ahayd nusu saacihii ayuu guuleed wuxuu damcay inuu doonto gob markaas wuxuu tegey geed weyn oo gob ah oo iskuulka agtiisa ayuu hoos tegey geedkiibuu kor u eegay hoostiisuu eegay hoostiinan waxba alinbuu arkay korkiisiibuu haddana ku noqday wuxuu arkay inuu gob ka buuxo waxaa kaloo arkay geedkii oo jirid weyn leh oo aanu kori karin markaasuu geedkii damcay inuu la hadlo geedkiibuu la hadlay geedow gobisii gobka waan cunayaa geedkii baa ku qoslay inankii guuleed ahaa wuxuu ku yidhi guuleedow waad hagaagsan tahay oo gob waan ku siinayaa aan ku siiya gobkee shimbiraha guudkayga saaran ayaa gobkii iga dhameeyey oo iga wada cunee shimbiraha iga duuli sidaasaa buu guuleed yidhi shimbirihii buu la hadlay wuxuu ku yidhi shimbirow geedka iskaga duula geedku gobbay siinayaa gobkana anigaa cunaaye sidiis lagbay shimbirihiina inankii guuleed ahaa ku qosleen waxay ku yidhahdeen guuleedow annaguna waxbaan u baahannahay haddaad doonaysa adiguna gobkan u baahan tahay annaguna waxaan u baahannahay hadhuur baan u baahannahay aan geedka kaaga duulle hadhuurna sii shimbirihii buu la hadlay wuxuu ku yidhi shimbirow waa yahay halkaa igu sii sugo geedkaana xabad midhaha ka cunina anigana isii suga midhaha iyo hadhuurka aad doonaysaanna anaa idiin doonayay inankii guuleed wuu cararay beer buu tegey beertii buu ku yidhi beerey walaal hadhuuri sii hadhuurka shimbirahaan siinaya shimbiruhu geedkii ka duulaya geedkuna gobbay siinaya gobkana anigaa cunaaye beertii sidiis leeg bay ku qosasho waxay ku tidhi adduunyadan ilaahay ad aragteen wax walba waxbuu u baahan yahay guuleedow haddaad adigu u baahan tahay hadhuur lagu siiyo ood shimbiraha siiso aniguna waxaan u baahanahay wax jiirka iga ilaaliya oo iga celiya jiirkana nafta ii keenay oo hadhuurkii aan soo saaraba cunaaya wixii dadka iga faaidaysan lahaa isagaa dibi cunaaya markaa waxaan doonaya inaad jiirkaa iga qabato wuxuu ku yidhi beertii beerey aniga ayaa la hadlaaya ninka la yidhahda jiirka oo idinka qabanaye isug dabeetana wuu dhaqaaqay inankii guuleed jiirkii oo beertiiba kusoo socda oo sanka taagtaagaya ayuu hor joogsaday jiirow istaag dad allahay taqaana istaag ilahada erey baan ku odhanaya sug jiirkii wuu istaagay inankii guuleed wuxuu ku yidhi jiirow beertan aad ku socotay iska daa beertu hadhuur bay siinaysaa hadhuurka shimbirahaan u geynayaa shimbiruhu geedkii ka duulayaan geedkuna gobbay siinayaa gobkana aniga cunaaye sidaa yeelo walaal iska daa buu yihi beerta jiirkiibaa sidii si leeg inankii guuleed ku qoslay wuxuu ku yihi guuleedow waa runtaa wadaagsan tahay annagoon kuu dayn beertee hal codsi ayaan aniguna rabaaye bisad baa igu daba jirto nafta ii keentay oon ka harhsan laayahay oon ka seexan laayahay bisaddaa iga qabo oo aad ku tiraahda jiirka iska daa soo intaasuun maaha halkaa ha dhaafin beertana ha u tegin adna halkaa igu sii suga anaa jawaabka ku soo celin doonee bisadaan u tegay bisadiyo dhabdhab gabagabgablaho jiirkii daydayso kolba good ka eegayso oo kolba geed ka hoos eegayso cararaysu arkay inankii guuleed wuxuu ku yidhi bisadey istaag walaal ha dhaqaaqine waan ku baryayaa istaag way istaagtay wuu ag fadhiistay way is ag fadhiistay wuxuu ku yidhi bisad alleh bisad waxaa tahay dadka la nool oo ammaan oo miskiinad ah wixii la siiyana iska cuntaa dadkana ammaan gelisa ubadkana la joogta maanta haddaba anigaa codsi kaa codsanaya waxaan kaa baryayaa inaad jiirka iska dayso jiirkuna beertuu iska daynayaa beertuna hadhuur bay siinaysaa hadhuurkana shimbirahaan u geynayaa shimbiruhuna geedkay ka duulayaan geedkuna gobbay siinayaa gobkana anigaa cunaya bisadii baa sidii si lagu qosasho waxay tiri kaalay intaasaa doonaysa waa hagaag sidaad adigu ugu baahan tahay maxaan ku dhahdaa inaan kuu daayo jiirka ayaa aniguna waxaan u baahanahay kalluun inaan cuno beryahana maan arag kalluun ii keen markaasaan aniguna kuu daynaya waxaa doonaysay wuxuu ku yidhi soo intaasuun maaha anigaa kuu doonaya kalluunka halkaagaa igu sug jiirka ha u tegin bartaasiyo fadhi anaa jooga ku soo celinaya inankii wuu iska tegay inankii halkeebaa ugu dhow markaa meeluu kalluun ka keeno baddaa ugu dhow meel beryeni wuu joogay halkiibuu ka dhaqaajiyey badda xeeligeeda ayuu tegay dabeed wuxuu arkay nin odayah oo waayeel oo badda xeeligeeda taagan ninkiibuu la hadlay adeerow waxaan doonayaa kalluun
kalluunkana baddaasuu ku jiraa ma qabsan aqaano xabad kalluuna oo bisada u geeyo hallaysiiyo wuxuu ku yidhi odaygi kalluunku dee tacab buu rabaa baddaasaa la galaa dabeetana waxaa laga soo saaraa kalluunka waxaana la soo bixi karaa nin sida naaquudaha badda ku jiro kale ah ama sitaa qalabkii lagu kalluumaysanayo badda geerkeeda intuu istaaga ku tuurto wiitarkiisa oo kalluunka la soo baxa ma tidataa qalab ma taqaana dabaasha ma tegi kartaa ninka kii yaraa Guuleed wuxuu yidhi intaa midna ma aqaan odaygiina wuxuu ku yidhi badan ma garanayo oo saan kuugu soo saaro ma garanayo ninka naaquudaha doonta wata aynu la hadalno dabeetana ninkii bay ku wada qayliyeen waar ninka habad kalluuna nasi habada kalluunka inanka yar baa doonaye markaasuu ninkiina hadlo muxuu ku falayaa Guuleed baa la hadlo wuxuu waxaan ku falayaa kalluunka bisadaan siinayaa bisaduna jiirkay daynaysaa jiirkuna beertuu daynayaa beertuna haruur bay siinaysaa haruurkana shimbirahaan u geynayaa shimbiruhuna geedkay ka duulayaan geedkuna goob buu isiinayaa goobkana aniga cunaaye naaquudii baa sidii si lagu qoslay dhag wuxuu yidhi waarina ka yaro adigu haddaad kalluun doonayso anigu badanaan muddo ku dhex jiray ma haysto wax la yidhaahda caana maan arag sanadada iyo sanadada kalluun anigaa kaa dharginaye adiguna orodoo tago caano ii keeno weliba caano lo-aad ii keen odaygii inankii yaraa hadleen oo waxay idhaahdeen dee waa taasoo waa laynala hadlaye caanihii baa laynooga baahanyay ninkaas inayna siin maylaan caana keene caanihii doon dee guuleed uu soo noqdayoo wuxuu ku soo noqday dee halkii uu ka tegay sac ayuu u yimi sacii buu ku yidhi sacow waxaan doonayaa doorkan maanta inaad caawiso ood caana isiiso caanaha naaquudaan u geenayaa naaquuduhu kalluunku isiinayaa kalluunka bisadaan siinayaa bisaduna jiirkay daynaysaa jiirkuna beertuu daynayaa beertuna haruur bay siinaysaa haruurkana shimbirahan siinaya shimbiruna geedkii ka duulaya geedkuna gob bay siinaya gobkana anigaa cunaye sicii baa yidhi nin waliba waxbuu u baahan yahay aniguna waxaan u baahanahay meel roobku sidaa u daahayo dhagakakakakac oo haddii allaba ku roy biyo xareedu saa u fadhido laysku cunaayo doogii iyo xareedii iyo biyihii iyo wixii o dhan laysku haysto markaasaan dararayaan caana ku siin karaa kuwa ayaa bixiye caruurey waxa bixiye ilaahay ayaa roobkana bixiya haddii allaba ku rooyahay nimcada waxa uu doogaa u doonaya sacun ilaahay baa bixiya baryada ilaahay baana tii lagu helaa inankii yaraa Guuleed xaggan u jeesto baryo u fadhiistay ilaahay buu bariyay ilaahayna wuu ka aqbalay baryadiina sidii buu ku helay arladiina way nimcowday siciina wuu nimcaystay cid walibana way nimcaysatay waana la kala maarmay Guuleedna goobkii geedaha uu ka doonayay uu ka maarmo dhulku ka gurtay shimbirihiina haruurkoodii bay heleen goobkoodii bay iska cuneen xayawaan waliba halkiisii ku dhargay baryada ilaahay caruurey ujeedada ruwaadeennana ay wadataa waa inaan baryada ilaahay laga dhargin baryada ilaahay baa wax walba lagu helaa caruurey sheekadiina maanta intaasi ayay noogu dhantahay